بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أمور الدنيا والدين. عشر كنا إنه وحجة وحنا أوسو جورينا روتين بروتوكوليس كإنه وحجة إيه HR بيجا وحلا يقانا open short path first. markaynu kala qaybinayno kala qaybinaynay qaybo waxaynu niri mid waliba hab u isticmaala kani marka waxa leenahay waxa la yiraahdaa link state protocol way it sent updates based on state of the link xaaladda linkigu ku sugan yahay ayuu isagu ku diray waxa loo yaqaan link state sidaan ku arkaynay EHRB gu isagu wuxuu ahaa hybrid oo isagu wuxuu ahaa advanced laba protocol oo kala duwan combine garaysanaya haddaba when the link state comes up markuu gamis hadduu soo kaco ama goes down ama uu demo it sent updates buu soo diraya update ka soo diraya wuu soo ogeysiinaya because of link state ayuu sameynaya ayuu doorbidaya open short path first ama OSPF protocol dynamic open standard routing protocol waa dynamic routing kii laakiin waxa weeye waa standard protocol maaha cidi ma laha EHRB ga waxa la ahaan jiray baynu nidhi mar hore Cisco proprietary markii ugu horeysay aanu nadoo gaandhiganay Cisco ayaa iskale ayaa la odhanay laakiin 2013 waxa la wadeegay waxa laga dhigay standard maadaama yahay markaa sidoo kale aan dhahdo OSPF protocol is a link state dynamic routing protocol why iska soo dhaafka it use short path first algorithm isticmaal SFP buu isticmaala wax la yiraahdo oo shortest path first ay isticmaalaan pathka keeba igu dhow destination hop count ka soo muribku isticmaalayna kanina wuxuu ka fikirayaa destination keeba ugu dhow laakiin shuruudaha tan halka yimaada cos wax la yiraahdo la xisaabiya matrix kii aynu sheegaynay EHRB ku soo eegin aynu soo xisaabinayna line K1 K2 K3 ayaa lagu kala dooranayaa K1 iyo K3 ba default sidoo kale kana wuxuu leeyahay wax la yiraahdo cos baa la xisaabiya oo aad u doonaa wuxuu leeyahay protocol type kiisu waxa weeyaan 98 protocol kan inaan hadda u fahmin protocoladii TCP iyo UDP laakiin kan waxa weeye protocol type kiis administrative distance oo waxa la isku aamino waxa weeyaan baan leenahay 111 EHRB ga misuha 90 ribka misuha 120 muxuu ahaa static routing ka 1 ka ugu administrative distance ka yar ayaana markasta kala dooranayo haday laba routing protocol meel isku yimaadaan marka rib iyo EHRB adaa soo kala saari doona iyo OSPF ka ugu fiican hadii saddexdoodaba la wada sameeyo ka bathku u marayo ama data-du ka dhex marayso ama routing protocol ka dominate gareynaya kuwa kale ee isagu shaqeynaya okay open OSPF is classless routing protocol ba la yiraahdaa matrixkiisa wuxuu ku xisaabiyaa cos wax la yiraahdo cosku waxa weeyaan yaani waa bandwidth-ka rootkaas imsu noqonaya marka cos calculation yar baa isla jira hadda ku raagi maayo wuxuu isticmaalaa wax la yiraahdo multicast bay isticmaali jireen rib EHRB ga iyo kana maanta ka hadlayna multicast bay isticmaalayaan unicast multicast broadcast unicast marka multicast kana isticmaalayaan waxa weeyaan waa laba hab isagu isticmaalaa 224.0.0.5 iyo 6 buu isticmaalaa oo laba hab oo kala duwan isticmaala EHRB 10 buu halka ka isticmaalay okay kani laakiin wuxuu ka isticmaalay 5 iyo 6 multicast kan wuxuu ku diraa wixii updates send hello packet ayuu ku diraa hello packet ka update ka ayuu ku diraya kana wuxuu ku dirayaa wax loo yaqaan designated routers ka hadlayno yara advanced laakiin waxa weeyaan waa routeradu maadaama marka ugu horeyso soo wada kaceen mid kasta wuxuu noqonayaa isagu ka packet ka diraya marka inaan adiga kula hadlay inaan adiga ila hadashid keeneebaa hor hadlaya ayaa la doortaa designated router wax la yiraahdo la doortaa tusaale ahaan laba ciidan oo kala duwan ayaa hal meel isku yimid laba taliya kala wata keebaa labada ciidan ee la isku keenay leeyahay gareynaya laba ciidan oo isku mid ah isku tababar ah isku trainina isku halkaas ayaa laba taliya kala wataan labada taliyana waa isku darajo keebaa wax maamulaya
wax Soomaaliya inay wada heshiiyaan oo ay mid kamid ah u maamulo designated routaries wax la yiraahdo routeradu doortaan adiga iyo aniga sayn u wada hadlayna keeba amarka laga qaadanaya keeba noqonaya ka isagu communication-ka bilaabaya maada noqonaya misaaniga noqonaya wal heshiiya marka prod hababa loo heshiiya say ku raadimeyno designated routaries bayna la galay micnaha ayaa taa kaga baxaya okay by default hello times kiisu waa 10 second 10 second buu hello ayuu diraya wax loo yaqaan hello message hello time kiisu waa 10 second dead hadduu 4 jeer oo min 10 diro oo uu waayo dead time weeyaa mas uu ka saaraya marka rootka uga saaraya okay soo sidaynu ognahay halkan qodobkan hoos baan kaga hadli doonaa OSPF ku wuxuu isticmaalaa wax loo yaqaan areas areaooyin buu isticmaalaa area 0 waa mandatory waxa noqonaysa markasta ka centerka noqonaya area 1 iyo area 2 area 3 waxa doonto kala bixi laakiin ka isku ka xidhay waxa weeyaan area 0 way area 0 baa la isku ka xidhay marka markaynu configure garaynayno arki doonaa area-da okay sida caadiga ah OSPF ku support gareeya both VLSM-kii aan horintii hore soo sharaxnay iyo route summarization labadaba route summarization sababta loo sameeyo maxay tahay route summarization-ka waxa sameeya inta badan routerada boundaries-ka waxa loo yaqaan area border routaries ABR balada kuwaasi borderada isku xidha way kaninadu wogan iyo nadu wogan ayuu isku xidha waa area border kanina waa area border kan router kan markuu rabo inuu network barto wuxuu baranayaa ka iyo qaybtaas oo dhan buu baranayaa haddaba haday wax wadaagaan summarization buu sameeyaa route summarization ayuu sameeyaa route summarization ku calculation buu leeyahay sida subnetting loo xisaabiyo kale marka isaga hadda yara advanced weeyaan qodobkaasi ku fogaan mayno routing protocols wuxuu isticmaalaa wax la yaqaan MD5 xagga security iyo clear tagas authentication waxa kaga fiican xagan iyo HRB-ga ku raagmayno routing protocol support summarization buu sameeyaa in waa kan qodobkii hore soo sharaxay area border routaries only ayaa sameeyay area border routaries ku waa kuwan router D iyo router C ayaa ah border ku yaala xuduud bay ku yaalaan maadaama xuduud ku yaalaan iyagu waxay isticmaalayaan marka inay summarize karayaan maadaama summarization iyo calculation fara badan ay sameynayaan waxa ku dhici doona in CPU-giisu inta badan uu baahan yahay OSPF-ku more memory marka common interview questions kan arki doona ay kamid tahay OSPF-ka iyo EHRP-ga keebaha memory use fara badan ama memory fara badan u baahan inuu isticmaalo waxa u baahan waxa loo yaqaano OSPF-ka ayaa u baahan okay haddaba waxaan leenahay OSPF work area ayuu ka shaqeeyay area 0 is the backbone of the OSPF topology OSPF-keenaasi waa ka noqonaya inta badan ka isku xidhaya without area 0 network inoo shaqeyn maayo waa tijaabin kartaan area 1 ka wada bilaaba wax shaqeynaya ma jiro waa in every router waa inuu isticmaala area 0 okay wuxuu leeyahay neighbor table iyo routing table kuwan arki doonaa packet OSPF wuxuu diraa wax loo yaqaan packet it sent neighbor table its own area ku isku area yihiin oo kaliya wuxuu diraa ko kale waxba uma dirayo micnaheedu waxa weeye area 0 iyo area 1 marka la configure garay area 1 hadaad adu configure garisay wixii area 1 u diraya area 0 hadaad configure garisay area 0 iyo area 1 hadii la rabo in la isku sameeyana waa different area waa la sameeyo wax loo yaqaano areaooyinka dhexdooda la isku furaa marka technique baa jira okay load balance is equal cost balance in the same destination iyo taasi hore soo aragnay load balance wax loo yaqaan jira oo loadka loo kala qaybinayo marka waxa uu sameeyaa wax loo yaqaan cost routes ka loo eegaya equal cost routes waxay sameeysanayaan load balance dynamic routing protocols wuxuu leeyahay unlimited hop count ribku muxuu isticmaalayay hop count ilaa iyo 16 kani waa unlimited okay routing protocol wuxuu isticmaalayaa sidoo kale hadduu trigger dhaco haday wax dhacaan update buu sameeyaa fast convergence uu sameeyo convergence-giisa ugu badan ma convergence waxa la yiraahdaa inuu how long ay time ku qaadanaysa inuu network-geenaasi wixii oo dhan dib u soo dabarto waa fast convergence marka hore u baranaya wuxuu isticmaalaa updateska sequences buu bixiyaa sequence numberka 0x8 buu ka bilaabmaa saasoo ku wada
deetana number badan buu noqdaa sequence numberkaasi wuxuu ku dhamaadaa 0x7ff ayuu ku bilaabmaa aan started again and again dibna uu bilaabmaya marba uu soconaya okay sequence number kaasi incremental buu sameeyaa sidoo kale waa little bit complex marka loo eego troubleshooting-ka OSPF ka marka loo eegayo la barbar dhigayo kuwa kale runtii inta aan ku soo koobo aan casharka ku xiga bilowno labka